sidoo kale waxa uu gaaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagaarka nagaadha ee ku yaala duleedka caasimadda Djibouti waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka mudane Muuse Maxamed Ahmed iyo agaasimaha guud ee dhabaha xadiidka mudane Maxamuud Roble Dabar waxa sidoo kale halkaasi uu salaan ka qaatay shaqaalaha dhabaha xadiidka ee tartanka casriga waxaana halkaasi macne ka siiyay sida lagaarkani nagaad iyo dhabaha cusub ee tartanka casriga ee isku xidhaya Djibouti iyo Addis Ababa uu u shaqeynayo agaasimaha guud ee dhabaha xadiidka Djibouti mudane Maxamuud Roble Dabar waxaana uu yahay tareenkan mid casri ah oo ku shaqeynaya koronto waana midkii uu horeeyay ee isku xidhaya caasimado laba dal ee qaaraddan Afrika sidoo kale waxa uu gaaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagaarka nagaadha ee ku yaala duleedka caasimadda Djibouti waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka mudane Muuse Maxamed Ahmed iyo agaasimaha guud ee dhabaha xadiidka mudane Maxamuud Roble Dabar waxa sidoo kale halkaasi uu salaan ka qaatay shaqaalaha dhabaha xadiidka ee tartanka casriga waxaana halkaasi macne ka siiyay sida lagaarkani nagaad iyo dhabaha cusub ee tartanka casriga ee isku xidhaya Djibouti iyo Addis Ababa uu u shaqeynayo agaasimaha guud ee dhabaha xadiidka Djibouti mudane Maxamuud Roble Dabar waxaana uu yahay tareenkan mid casri ah oo ku shaqeynaya koronto waana midkii uu horeeyay ee isku xidhaya caasimado laba dal ee qaaraddan Afrika